بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد جلسدان أما فردقا وكي أفراد فرديادي نوسو سعودي كميدة كنا صاب صناي موضوعها اتباع السنة وحا حالا نودن بي وحيالها أي دليل كشيغين ama sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka keeneen ama quraanka ay ka keeneen oo u daliishanayaan ixtifaalka iyo boodboodka shubahadii koobaad ayaan xalay ka soo baxnay oo ahayd qul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi iyo qaabkii lagaga jawaabay shubahadii labaad ayaan caawa si toos ugu gudbaynaa insha Allah taala wax baraarujin kama hormarinayno waxay dhaheen hadaa aayadan naga kicisaan ee aad tirahaan daliil in ma aha waxaan haysanaa aayad kale ee tusinaysa in macnaha ixtifaalka iyo isku imaadka hawlahan la sameyn karo waayahay oo aayadda maxay ahayd waxay dhaheen waxaan aan qabanayno iyo isku imaadkan aan sameynayno waa fursad ijaanis aan ugu faa'iideysanayno inaan salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan badino in xabiibka calayhi salaatu wasalaam lagu salliyana waa nala faray oo ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy allah iyo malaa'igtiisaba rasuulka ayay ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka amarkaasaan haysanaa bay dhaheen oo nagu kallifaysa inaan mawliidkan ama ixtifaalkan iyo dabaaldeggan aan samayno waxaan leenahay aayaddaas dhowr waji baan kaga jawaabaynaa jawaabta koowaad horta horey baan u soo marnay oo ah inaad keentaan qof salafka ka mid ah saxaabadii laga soo bilaabay ciddii ka dambeysay oo aayaddan ku fasirtay ixtifaal iyo in la isku yimaado taa xalay baan isla soo ogaanay soo mahayn marka mar walba oon daliil ka jawaabayno jawaabta koowaad taasay noqonaysaa horta waa inaad ila socotid hal qof oo salafka ka mid ah ilaan diintan ma aha mid leeska bilaabanaya dad baa nooga horreey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo xambaaray fahamkoodii in loo laabtana inay waajib tahay waa soo baranay marka qof ka mid ah oo ku fasiray aayaddan in ixtifaal ay daliil u tahay bal horta noo keena ma haynay dhehen waayahay mana hayaanono maba soo arkayaane wajka labaad ama qaabka labaad oon kaga jawaabayno waxaa weeye in nebigu calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo waa shay mashruuc ah fii kulli waqtin xilli kasta iyo ilbiraqsi kasta in nebiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam waa wax loo baahan yahay arrintaana waxaa ku tusinaya xadiidka abu hurayra fii saxiixi muslim hayrii ku soo arooray uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya salaatan waaxida أو من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 هل مر قفكي ugu saliyo anuu 10 baan ku salinaya wa Allah yiri subhanahu wa ta'ala man صلى علي واحدة qofkii aniga nabi maxamed hal mar igu saliyo Allah subhanahu wa ta'ala 10 jeer buu ku salinaya xadiidkaas markuu wuxuu faa'iideynaya salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo mar walba inay mashruuc tahay waqti goonina ayna lahayn ilaa wuxuu sharciga sheegay oo noo soo socdo mooyaan wajka labaad aan kaga jawaabayno waxa weeye in nabiga calayhi salaatu wasalaam wajka saddexaad baan rabaa nabigu salaadiisa ma in la badiyo ee nabigu lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam fi awqaatin muayyana waqtiyo gaar ah sida yawm aljumcati aadaamka marka la dhameeyo kadib markii macnaha nabigu magaciisa la soo qaado oo kalaato iyo waxyaalaha lamid oo shariicada sheegtay intaan asaga ayaa jiday oo noo ogolaaday iyo inta la midka walam ya'mur bidalika yawma mawlidihi aw laylatiha habeenkii asaga la dhalay ama maalintii la dhalay waxa dadku ku sheego nama farin inaan ku sallino si gooni ahaan wixii marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nafaray inaan ku sallino ee mashruuca oo shariicadeena noo jideysay waxaan leenahay waa ku qasbannahay waajibayna nagu tahay inaan ku camal falno
wixii aadna nafarina waad celinaynaa oo dib baan u tuuraynaa siduu nebigu calayhi salaam ka sugan man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun waaya wajka afaraad oon ugu jawaabayna waxaa weeye aayadda aad keentaan aayaddan waxaan leenahay daliil idinkii in ma ahay annagay daliil noo tahayba in mawliidka la diidayba daliil u tahay aayadda in la ogolaado iskaba daah say daliil ugu tahay waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka faray inay nebigu ku salliyaan calayhi salaatu wassalaam fii kulli waqtin waqti kastaba yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman baa la dhahay lama dhihin maalin hablaay waqti kasta aayadda ay faa'iidaynaysaa in lagu sallin karo maalintii la dhalina laguma gooni yeelin marka say idinka daliil annaga daliil nooga noqonaysa idinkana ay xujo inkugu noqonaysaa aayadda oo ay mawliidka inuu jirinba ay u faa'iidaynaysaa annagana inuu macnaha waxaad wadaan inay baatil tahay u faa'iidaynaysaa waxay u faa'iidaynaysaa qaabka soo socdo marka koobaad aayadda salliga nebigu calayhi salaam ay sheegtay uu ilaahay na faray waqti kuma ayna xirin soo maaha idinka laakiin maalinta mawliidka bisaad ku xirteen taa waa midda labaad aayadda waxay tihi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ee ku salli baa nala yidhi laakiin nama dhihin aayadda hal meel iskugu yimaado oo gurbaan garaaca ama xalwo karsado iyo wixii la mid ah ama gaari kiraysto oo fuulo oo calalo madaxa ku duubta sidaa ugu salliya nama dhihin aayadda may la socotaan waaye ayaganu maxay ka dhigteen idinkana maxaad ka dhigteen in meel lagu kulmo kadibna meeshaa loogu salliyo bis ah aayaddii marka waxayna gooni meel ku ay macnaha kaga yeelin ama meel kaga dhigin ayaad gooni ugu yeesheen qodobka saddexaad aayadda qaab gooni ah nebiga ha looga salliyo ma ayna dhihin ma qaab gooni ba aayadda ka muuqato maya waaya idinkana waxaad u samayseen qaab gooni oo weliba si gooni loo wada qaado qaab nooc loo wada jibiyo qaabna lugaha loo wada qaado gacmaha loo taago indhaha loo taaga aad u samayseen qofka muslimkana waxaa laga rabaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ay meel ku xirin adigu xaq uma lihid inaad meel ku xirto xaq uma lihid wixii ayagu ay meel ku xiraanna xaq uma lihid adigu intaa meesha ka qaado inaad meel kala geyso waxaa loo yaqaanaa mutlaq iyo muqayad baa loo yaqaanaa usuul fiqiga wixii marka nusuusta ay qaydoy meel ku xirtay ayada ayaa lagaga dayana wixii ay sii daysay fasaxdayna sidooda ayaa loo daynayaa ama kayfiyada iqaabka loo dhigaa ha noqoto ama xilliga laga dhigaa laga samaynaa ha noqoto ama nooca iyo waqtiga ha noqdo si kastaba maxaa yeelay shuruudda cibaadada waxaa ka mid ah soo marniba ee ay shuruudda cibaadada ay ku ansaxayso waxaa ka mid ah almutaabaca limanhaji rasuulillahi sala allahu alay wasalam nebigu manhajkiisii iyo dariiqadii waxaan u samayn jiray in la raaco xalana waa soo tilmaanay shay kastoo cibaado ood samaynayso 6 arrimood inuu shareecada ka waafaqa la rabaa soo saas maana soo marin waayo marka aayadda daliil iin ma ahee daliil bay dushiina ku tahay wajka shanaad oo aayadda kaga jawaabayna waxaa weeye waxyaalahan aad salaad ku sheegteen oo salli nebi ku sheegteen salliba ma aha xaqiiqada marka dib looga laabto waxaad ka faa'iidaysateen 2 arrimood dadweynaha aad wax u akhrinaysaan oon carabiyada wax badan ka fahmaynin iyo idinka naftiinna oo carabiyada wax badan ka fahansaneen baad ka dhex faa'iidaysateen mooyaane waxaan aad akhrinaysaan oo salli nebi ku sheegaysaan marka xaqiiqada loo dego shirkiyaad waa kuwa badan oo ka mid ah hamziyaday ku qoran yihiin macnaha kitaabkii burdaha buusiri bay ku qoran yihiin iyo wax la midka shirkiyaad iyo bidac iyo quluwi ayay u badan yihiin salliba maaha maxaad marka nagu eedaynaysaan inaan waxa shirkiyaadka diidno waxay ka dhigan tahay salliga inaad diiddo kama dhigno marka waxaas aayadda ay sheegtay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam salaantiisa ku saabsan iyo in lagu salliyo iyo waxaad idinka wadaan waaba kaaf iyo kala dheeriyo shaqo iskuma laha qaab lixaad baan aayadda ugu jawaabaynaa ee waxa aad keenteen
waxaan leenahay in kulan meel la iskugu yimaado iyo dabaaldeg iyo sanad guuro la soo kordhiyo munaasabad darteedna loo soo kordhiyo sababna laga dhigo ilaahay iyo rasuulkiisana ayna sabab ka dhigin wax jira ma ahe waa bidcaan leenahay waxyaalaha xali aan soo marnayn waxaa ka mid ah cibaadada aad samaynayso waa inay xagga sababkana ka waafaqdo shareecada soomaana soo marin waaye tusaale gaaban haddaan soo qaadanno qof baa wuxuu istaagay maalintii xaramka xajka la joogo maalintii carafa intee la rabaa in la istaago banka caraf soo maha meel kale uu iska istaagay habeenkii la rabay musdalifa mina in la jiifto ama musdalifa la jiifto ama xilliga la rabay in dhagaxyada la tuuro ee waqtiga looga tirigalay ramyul jimaarki buu iska bedeshay ama meeshiiba looga tirgalo bedeli oo dhagaxyada ku tuuray ama meeshii mina la bariyay jiray meel kale iska soo bariyay loojimada magaalada iska soo saxday ama maalintii carafa la istaagi lahayba maalintii meel kale iska soo istaagay wuxuuna yiri acmaashan aan hadda samaynahayo waa acmaal wanaagsan mana ah waxaan anigu bilowday ee asal bay leedahay anigu kaliya waxaan ku sameeyay waqtigan ka bedelay waxa ma halaynin ama meeshii loogu tirgalay baan ka yar qaadee dhulka ilaahay waa waasic meel kale baan yar istaagay dadka oo dhan maxay dhahayaan saxiya ma soo qaldan yahay carafa meesha ma ogi hadaa Nairobi iska istaagay carafa miga ansaxaysaa ya waay waxay la wado waa wax noocaas iyo wax la mid weey marka aayada marna daliil uma noqon karto nin garanayana waxa intay ku dul aqriyaan daliil bay iite ma dhihi karaan waay waxay dhaheen aayadan haddii aad naga saarteen oo daliil noo noqon waysay daliil kalan haysana oo muxuu yahay waxay dhaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala amaakinta iyo meelaha qaarkood wuu karaamay weliba gaar ahaan meelaha ambiyada la xiriirtay dhaheen ama xilliyaha noqoto ama amaakin iyo meelo la iskugu yimaado ha noqotee tusaale waxay u soo qaateen maqaamu ibraahim kalaata wattakhaduu min maqaami ibraahiima musallaa ibraahim meeshii uu istaagay oo lugihiisa saaray meel lagu sunnaysta ka dhiga oo lagu tukado ka dhigto soo ilaahay ma dhihin marka waxay dhaheen meeshaan waxa weeyaan sharafta waxay ka heshay ibraahim bay ka heshay marka annagana maalinta mawlidkaan dhigayna nabi maxamed bay sharaf ka soo qaadatay dhaheen marka waa xariifiin la soco alle nin dan le maxay dhaheen Soomaalidu daliil ma waayo maqash inaad digsi dib u saaran yahay digsigan inaan dibka laga qaaday waa uu ku dadaalaya ilaa uu cuno wuxuu macnaheedu wax waan u laabaya meel madax gashanaya aayadan marka waxaan ka garanay dhaheen inay nagu dhiirigelinayso bikulli ma yata'allaqu bil anbiya wax kasto anbiyada la xiriiro ama meel ay istaageen ha noqoto ama xilli ay dhasheen ha noqoto wax walba anbiyada ku saabsan ama calaaq xiriir ballale inay nagu dhiirigelinaysaan u aragnay dhaheen ومنها وحاكمة الاهتمام بيوم مولود يا بايدين مركا حابة كمية وحيالها مركا أي نجو رجلين يسوي نجو بورين يسو إن مولد دجنون بودنون احتفالنون وهكذا وحلنا هاي آيات وحن أرد دليل إن ما هي لكن دور قابن كجوابينا قلبك كوبات آيات دو وحي كهذا الشيء سو عبادة ماها إيماش اللي قصة ماينة عبادة حالة وحان صومر نصوب برارو جيني وشيء توقيفي سيدانا إلى قمن أنو سيدانا إلى قرحصن كمش قيس عباده على التوفيق والاتباع بك سعطة ووح إلهي الرسول كيس عليه الصلاة والسلام هل كي استاجيين لقد نقاجن كرو قاب كي يقول لنا دينا عيدين على قمم مري كرو لا على الرأي والابتداع سيدانا إلى قمن سيدانا سؤالك جريء أنا تنسكب اللوضي وإلى قرحصن كمش قيس وحلينا مركو وحكستو إلهي الرسول كيس أي وينيين أما وقتي هالنقضو أما ميل بوس هالنقطو فإنه يستحق التعظيم إلا وينيو مضيه
maqaamu ibraahiima soo alla ma weynaynin soo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii kale amar laguma siinin marka weynaynta ma mid annaga jeebkayna ka timid baa mise waa mid rabbul caalamiin ka timid bal fiiri nimanka meesha waxay ku hadlayaan waxaad fahmi kartaa tama wax walbood ilaahay iyo rasuulkiisa ay weyneeyeen waxaan ku qasbannahay in annagana weyneyno oo maqaam ibraahim ka mid yahay wax kastoo weyneynin oo weyne macnaha ay u sheegin ama ay weyneyninna annagana xaq uma lihin inaan weyneyno haye taa horta waa mid ay qabso maqaam ibraahim ilaahay iyo rasuulkiisa weyney waana shay mashruuca oo nala faray xaq uma marka waxaan annagu bilaaban ama adigu bilaawday ma aha waxaad ku dayata meesha kuma yeelaan oo aad boodbood daliil ugu raayso waj labaad baa jira oon kaga jawaabayn waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisu wuxuu faray maqaamu ibraahim inay ka dhigtaan meel ay ku tukadaan laakiin ma farin maalintuu nebi maxamed dhashay calayhi salaatu wasalaam inay ka dhigtaan ciid ka dhigtaan ma farin meelaad ku fari miyaan haynaa ayaguna ma keeni karaan annaguna ma helin tusaale gaaban fii musnadi axmed wa kayrihi waxaa ku sugan mucaawiya oo kacbada dawaafayo dacbada markay la taga xajrul aswadka marka la dawaafayo waa taqaanaan laba rukni baa ama laba tiir baa la taabtaa rukniga xajrul aswadka ku jiro iyo ruknul yamani soo maha labada tiiroo kale la iskuma dhawaada lama taabto mucaawiya wuxuu sameeyey marka yastalimu alarkaana kullaha afartiba gacanuu kala daalay waa wada taabtay cabdullahi ibn cabbaas baa la soco faqaala lahu ibn cabbaas ba wuxuu ku yidhi lima tastalimu haadayni ruknayni war labadan la gariye laakiin labadaa kale maxaa u taabatay walam yakun rasuulu llahi sayastalimuhumaa rasuulku ma taaban jirin buuri haye faqaala mucaawiyatu markaasuu wuxuu yidhi laysa shayun min albeyti mahjuuran wax guriga ka mid ah ee kacbada ka tirsanoo in laga taga mudan oo mahjuure ma jiraan buu yidhi marka afartaba xaq bay u leeyihin in la wada taabto cabdullahi ibn cabbaas wuxuu ku yidhi markaa mataqaanaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatun buu ku yidhi mucaawiya markaa waa isqabtay wuxuu yidhi qaala mucaawiyatu sadaqta run baad sheegtay waana ka soo laabtay arrintii halkan marka dhowr arrimood baa ku sugan cabdullaahi ibn cabbaas waxyaalaha aan maqlayn waxaa ka mid ah shubahaadka noo imaan doonan hadduu ilaahay waqti noo siina ka mid ah waxay dhaheen nebi maxamed waxaan ma samaynin calayhi salaatu wasalaam daliilba ma aha hore baan muxaadaro dhan kaga soo hadalnay laakiin wax yaraan ka rabaa inaan ka baraarujiyo nin baaba idaacadaha ka hadlaayo oo caalamka waxaa u gudbinayo waxaa diin laga qaataa ku yidhi nebi maxamed hadduu dhaho waxaan waa xaaraam iyo hadduu dhaho waxaan waa leenfare bis laakiin tarki maba aha daliil waxaan wuu iska day daliilba ma aha cabdullahi ibn cabbaas ninka hadda muxuu ku haystaa nebi maxamed baa xaaraam yeele ma dhahay maya nebi maxamed baa dadka fari ma dhahay maya ma samaynin bisuu dhahay si fiican u dhegayso waana meesha la rabaa diinta ilaahay in qashinqub laga dhigo wax walbaba lagu soo shubo qofkii gadaal ka soo rucleeyaba uu rabo siduu rabo inuu ka dhigo waa meesha aan leenahay war ka joogo tan waad ku halaagsamaysaana haddii la yidhaaha bal waxaa aad iyo aad macnaha la yaab leh nimanka waxyaalahan qabo waxaan hadda meelaha ka ordo waxaan macno weyn ma laha laakiin ragga rasmiga ah oo wax ka qorqoray kuwa badan oo ka mid ah waxaad arkaysaan kutubtooda ayagu ku dhahay shaygan waa bidca kan lama ogola laa yajuusu oo maxay daliil ugu dhigeen nebi maxamed ma samayni bay ku dhahayaan salafka lam yunqal can axad min asalafi bay ku leeyihin ardayda hadday fahmayaan oo aqrin karaan abu shaama kitaabkiisa aqriyeen albaaxith calaa inkaari albidaci walxawaadith inta shay uu keenaayo oo uu daliil kale markuu u waayo uu leeyahay nebi maxamed lagama maqlin ama nebi maxamed lagama soo guurin calayhi salaatu wasalaam ama salaf ma samaynin saa daraaddeed waa bidca lama ogolo uu leeyahay laa cadada walaa xisaaba haddii la yidhaaho wuxuu nebi maxamed ka tagay sababkii in la sameeya keenayna uu meesha yeelo wax u diidoo maanicna aysan jirin
دليل ما هدي اللي يرى واحد بدن ودين إلى معناها أن هاي سنة كمية خدك كوضع بحيان واحد بدن وبلاي أو شركيات إيو غرفات إيو قزع بلادنا ودين تحت الله صور دقايا وحيالها دين تلقوا واردية باي كمية هاي نبي محمد مسميني كجوك وأنا ماشي أيقو الربان إن الله فصحة كدبنا أي شركيات كورنا ماشي كسو بوحيان عبد الله بن عباس وحوري النبي متابن جرين بوده مديه النبي محمد با حرام يالي مديه النبي محمد أنت أن مفرين محوري لم يكن رسول الله سيستلمهما بس مركز ولي آيات كسي ضروري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وايه قد يدعسنا إلا حديثك وحتى وكتر سنة أقواش علماء ظهريبا أصلا شيقني وتهلك وكمراجعين كرتان وحيدين هداد آيات دا نجد ديدين هدانا دليل كلام هاي سنة ومحوية وحيدين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أساق أيابا موليدي بقى كو وعلى مقلي إن ملا مقت يا قلياهن هذا الجوجو ولي بجارهان كوا الصومالي كوا الله بوليد وبدعة هذا لما مقشين كرو واجه هرم بدعة لكن وبدعة وناكسن لدي يجري مقطع هذا وحالي البلايا قد كان وبدعة ده وابا قد كأي سلفية نقص وقشة أم بكبحنا قرآن وبحنا حاجة وبحينا وابا واجب عندنا قرأ وبحين لصعو قرأ تكرر هذين هذا مويانه هوس ما بجوجان ولهذا مساجد سوسية كويلو بوداد ما أنت لو حيجي شيء نين أضيبا سنة كهراء استاجي وحيجي أجيسيس ومحوق ساب سنة بريتو حوله إن حلاشة هيبان قلنا احتفال كمولد كاجرو ساد راد مال هبلاي حالي ما دوره ليته أنت سكيجا كيسية هل كاسكو أمسيه قلنا وحي قلنا دهن حولاس لمعوني كريم ما نجرت وركوده وبدعاء لكن وبدعاء حسنونه بل انتو رموكو امس wadaad agtiisa fadhi markuu soo kacay nin oday buu ahaa xaaji balkaale horta afka caana lagu qabay maanta bawliidkeeda bidcay afkaada ma ka sheegtay xasanada hay dambayso yiri odayga budweyn buu balla kacay ana hadalkayda si qalad u fahanti digaal buu bagalay xud digaal u galaya waa bidca afkiisa in laga maqlo afka ka xaday ma rabin soo mujodi ya laakiin waag bari maxay dhaheen Soomaalidu saxaba lagu macnaha maxay dhaheen waaye saxaba lagu ma qarin karo inay bidcada kutubta oo dhan bay ku qoran tahay waaye wax hada oo adigu aad qarqarin karta inaad bud qaadato ku istaagi karo ma ah nabiga ba mawliidi bay dhaheen haye oo dhalashadiisa weynay oo xagay ku taalaa waxay dhaheen nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam maalin isniin ayuu soomay haye waana la weydiyo maxaad u soomantaa wala yiri markaas wuxuu yiri ذاك يوم ولدت فيه وماننت لي دلي أو معناها وبعثت لي صاري أو أنزل علي فيه أما القرآن كاللي يقصد تجيبونه صادرات مركو حين أن أسقط هدو صومي تاسوا احتفال بيهد سقط بدبودي بيكدي أنتهي وياي وحلنا هاي دور قابن حديثك كجا جوابينا على لا صعدو قابك كوباد waxaan leenahay hal waa jawaabti horo hal qof oo salafki kamida allan anaga diinteena waa diin dad dayasho ma diin bilaabasho nin walba maalintu rabo wuxuu iska bilaabanaya ma sida yuhuudi kristaanka al-ittibaa way hal qof oo salafki kamida oo aayada in mawlid lagu fasiri kara ka fahmay ii keeno ila qiyaam saa'a maaha ila 10 sano maaha هل قف كل حكينا تاس وجوابت كوباد واحد جوابت اللباد وحن لنا هاي نبي وحل ويدي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين ما أنت اثنين تقول الصوم ما أيال ويدي ولم يسأل عن صيام يوم 12 من ربيع الأول ما أنت بشي ربيع الأول أما بشي مولد لبي يطمنتهاي صون النبي صون مية لويدي ما سمانين سنين إصون أصون نايب اللويدي جوابت معي
يا mal bisha 12aad maalinta ay bisha waxaan rabaa mawlid maalinta ay 12 maraysi soon u soonay miya la weydi masa maalin isniin ee soon u soonaa la weydi isniin soo lama weydin ee hay halka waxaan leenahay cilada nabigu calayhi salaatu wasalaam تخصيص يوم الاثنين بالصيام وليس تخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت اثنين ومعناها كجوني يلي صن معها إلا ومعها ما أنت اللي طبعا كأي مولود كتاع إن صن معناها احتفال كجوني يلو وما حد عين محيي النبي عليه الصلاة والسلام ومشرع واي أحكام بدن صنّي ومجدينين يا وياه أسقى مشرعة أو أحكام تجديناي معنتي أي بش مولد لبي طبعا كأحد كم جوني يلين صن ولا عبادة جوني منكم جوني يلين توا جوابتك وبعد جوابت الله بعد جوابت سيد هذا حديث بحين إنه حيته نبي عليه الصلاة والسلام مركل ويدي سببك أمانته أسومية هو عدي لكن سببك أما علة واحد الله يقانو حكدي مركبة مد إسدول ساران رجع أصول الفقه أما ورقات كيو كي يرى عثيمين كي وحكسوا آخرستي ويفهم دونان لصعو ماشان قاعدة أصولها معاه كجرته ولا قصة صار ربا حديث كان نبي مركز سؤال لويدي علة مركبة إسدول ساران أما سدح ككومن أما لبا ككومن بوكو شيء إن لا دلي إن قرآن كله جسود دجي أما لا صار صوص ما هيه أيها هل حبي يكون دجين لا صعدة ولا دلي ده يكون دجين ولا جسود دجي ده ويكبوده وحلنا أصول كمرك ديب لوجو لابتو إلا ذا هدي مركبتها يسزول سارنتها لا تؤثر إلا إذا اجتمعت الأوصاف المركبة كلها أصول كمرك ديب لوجو لابتو سيدا الصحدة شيء هدو ليه دور علب هدو ليه أما علا إسدول سارن وليه وحي إسدول سارنا لما أنتوا إن له لمو يانه سامين مجالنا بلا سعتان سامين مجالنا هل حبكم في النانيس هدي اللي بقى هين لبض وين له هدي كبر ناين وين لبض له marka xadiidka nabigu marka la weydiin laba cilo ku sheegay ama saddex buu ku sheegay waxa leena mid kaliya inaad ku dhagtaan saameyn ma yeelanays waagart labadan cilla in la helano kuma dabaq mayso kuma socon karto illa yawm al-ithnain mooyaan maalin isniin ee in la hela ma ogi maalinta 12 ay mawlid uu yahay كم ضمق بكرته سادرادد مانين سنين أود مولد كسو هذا جرما ودم بيسيب بابا لحسوس طبعا مانين تي أي دن كسو قشوا مانين تا أمباي عم بولو ذكر سدان اللي واحد سنين كسو على ما هي سنين بندليشنا يا أحدنا ومولودا يا سنين بندليشنا 4 بن مولودا يا ويا هذا إسلي مولود كذا يقولي لما جارين بيشري ما غير مريثا عاوشان يطبون أحد بيصور أن مولدان على جيابه الإنجاني سيل قاضيان سراكيل يوح حوا فصح يرادنا وحبال السكو أدينا بابورت اللي جو كريه أو فردي اللي جو كريه فقالوا حوا ظروفها كجرت ودكتي وياه مركع علاء إن من نقونيس شيء أنت صوع علاء إن أدمت كقاضتان هو كلنا سكيجا تكتان دليل من نقناي وجهك أفراد كذا جواب إنه حوي حديب أتكودان مولود كان وحنا دقيسان شكر إلهي لوجو شكرنا يو إلهي ما أمهد علينا أيوة كل هذا كيسان النبي كان عليه الصلاة والسلام نعمة النبي دلشيء سكون سابسان بعد إلهي وجو شكرنا إنسان نبي محمد إنه سنين صومين أتكجد ضينا إنسان نقل السوق جوري إيه معقول كلام وحي كينايان
inay noqoto shukriga inuu noqdo qaabkii nebigu u shukri calayhi salaatu wasalaam nebigu isniin qaabkeed u shukri baraashiinaad kari sooma soomin khalaas haddaad bandhigka nebi maxamed kaga dayanaysaan shukri ilaahay lagu shukrinaana uu yahay asaga waa soomee sooma bas intaa jooji halkaa ku isaaji ilaa nebi maxamed aan ku dayanahay anigu waa dacqurma asna waa gaajoonaya misqabani waxaas hataa carruurta lagama dhaadhicin kara dad waaweyn iskaba dhaaf laakiin soomaalida waxay dhaheen ninkaas alla kula qaada aayar lama dhiga ku yahay waxay ka wadaan ninkaa xoog badnaan jiray oo kaa tabaroonaay unbaa maalin xoogol adigoo ishaysaan bay lug u yara baxday dhulkuu yara aaday markaas waxaa kuu fududaatay inaad kor u yara qaaddo haddii aad soo kacana waxaad og tahay inuu hadhuu dhulka ku dhigaayo si fiican baa dhulka loogu dhiftay dheheen saad u soo kicin dadkii caamada ahay bay marka si fiican dhulka ugu dhufteen si ay mara u soo toosinba waxay rabaan marka ka dhaadhicinayaan waayahay weliba qofoloba waaweyn ay ku dhijiyeen oo furiyaashina way ka qaateen kuwa badan oo ka mid ah waxay dhaheen qof kale oo annaga naga duwan haddaad dhegaysataan khatar waay sun waay anigu naftay inkastoon barnaamijkan aan ragga xariifiinta ku noqday aanana ka mid ah laakiin waa ka agdhowaan jiray kama fogfogeen waxaana la dhihi jiray niman maahan sun ah hadalkooda hataa aad sun yahay dalaq ku dhaha isla markii aad jire iska ilaali ya darsi aan hadda ka hor dhegaysan jirin waxaa xasuustaa ya markii darsiga laga soo baxay ragga kuwa waxay ayna dhihi jireen maxaa shamiitada ugu dhimanaysaan waxba darsiga kama faa'iidaysanaysaan annagana waxaan ku gubi jirnay mataqaanaa maalin allah wadaadka markuu darsigu akhrinayo wuxuu leeyahay kuwa maahan inkaar qabo oo duruustana dhegaysta inaad ilaahay waxba fahansiin faatixada marab aamiin baa la dhihi waaga si faatixada muddo loo soo waday markaan 4 sano 5 sano la jirno oo faatixada maalin kasta la maro ay waxba qaban waysay ilaan waa sheekh qaadi maalinta dambe waa loo imaanay sheekh waxaan rabaa masaajid meeshaan darsi ka bilaab rabaa inaad la socotaan rabaa bal dhihi masaajidka hadduu tagaba kuwii faatixada loo mari jiraa darsi ka akhrinaya ku kale hadduu tagaba midaa khudba ka akhrinaya marka de wuxuu soo rogay waxaa waa wax inkaar qaba faatixana xataa waxba ka tari mayse duruusta ha laga ilaalisho masaajidka iridka soo gal ha loo diido qaar baa ragga qaar waxaan xasuustaa tooriyaal baa inta gashin jireen cariya iga celi darsiga bay dhihi jireen alle wuxuu wado waa baadil inay iska tahay waa loo joodaa darsiga fahamkiisa iyo tawfiiqdana ilaahay baa iska leh soo ma marka waxaan ku gubi jirin marka waxaan leeyahay maalintii faatixada la maro maalintaas ama si fiican darsiga u fahnaa anaga maalintaas darsiga kaas maba la hilmaamo maalintaas la fahmay markaas waa karkaraan ya waay marka waxaan leenahay war nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu macnaha isniinta ku weynay inuu soomay sooma nimiyow haddii aan marka soontaan waxaan leenahay dhowr arrimood oo aad xaqiijiseen waana saxantiin oo maxay tahay kow horta sunnada nebi maxamed calayi salaam waa raacdeen ile isagaa soomee waana ku dayateen soo ma laba sunnadiisa oo dhimatay oo dad badan ay ka warqabeen in isniinta la soomana waadba soo noolayseen saddex bidac badan afkaad u xirteenoo waad baabi'iseen laakiin ma ayaga ku dhacay nin cambuulo u joodo kala soon ma yeelaya nin laga dambeeyo dabada laga soo riixo oo la leeyahay ama safaarad ay soo riixi ama safiir uu soo riixay ama wax lamid ay soo riixayaan kaali soon oo gaajo ma yeelaya yeeli maayo wajka shanaad oon kaga jawaabayna waxay tahay shubadaas waxaan leenahay su'aal baan weydiinaynaa nebigu maalintii isniinta markuu soomay ee shukri uu ka shukrina uu ka mahad celinaya calaa nicmati iijaadihi in asaga maalintaa la dhalay ilaahayna uu ku karaamay subxaanahu wa tacaala in risaalo loo soo dhiibo dadka uunkoo dhan asagoo u digaayo loogu soo dhiibo nebiga muku daray oo soonkii muku daray ixtifaal maalintaas maalintiisu u ixtifaalaya muku daray soonka moogi inuu ixtifaale
muku darib labadu musku darib ma yay dhehen lama hayo sida ayaga iskugu dareen oo kulamo la iskugu yimid oo qasaa'id loo qaaday oo gurbaan loo tumay oo heesa loo daartay qaarkood waxay sameeyaan waaba taqaanaan wax laga sheekayn karaa ma qof akhyaar ah ama qalbiga hata aqligiisa in yar uu shaqeynay meelaha hata la iskugu matay karo jawaabtu waxaan leenahay waa maya jawaabta haday maya tahay war ummadda miyayna ku filneen wixii nabi maxamed ku filnaaday calayhi salaatu wasalaam war ummaddu ma ku filin tahay mas kuma filno ya nabi maxamed soom buu ku kaaftoomay oo ku filnaade wax kale ma sameynina annaga soonka ma nagu filiyo mas nagu filno ma nagu filin yahay waa la gartay qof caaqil ah oo aqligiisaba uu joogo maya ma dhihi karaa nabi maxamed wuxuu ku filnaaday ani iguma filna waxba ii dhiman ma dhihi karaa inna lillahi wa inna ilayhi ma dhihi karo bas khalaas haddaan dhihi karin waxba shaarka weyn ha isku qarinina waxaan la dhihin waxba dadka ha ka sheegina dadka ha ku been abuurinina meel ay dood ka jirin inay dood ka jirta ha ka dhigina waxaan leenahay wixii nabi maxamed kugu filnaaday calayhi salaatu wasalaam ha kugu filnaadeen magaalada Madheera la yiraahdo baa rag wadaado waxay iga sheegayaan wadaado waxaa jirtay mawlidka ayada ku qornayd oo digsiyada karin jirtaa jirtay waagada markay xogo maskaxdeeda aan kulli qofulkiya laga yaabaa inay furihi meel ka heshay ala dadka qofula lagu jibiya ma dadka kale ha dhageysanna lagu dhihi ha dhageysan balaay qabana furihi baa laga yaabaa maalin uu kulli meel uu dagan intay ka heshay ay wax uun yara dhageysatay marka qalb waxa soo gashay uun waxaanay horta khilaafa ku jiro iyo waxbay meelaha ka maqashay wadaadka ugu weynaayo habeenka dambe su'aal ay la hor istaag sheekho hal su'aalan ku weydiinaya oo maxay tahay bal i weydi su'aal fiican inay soo wadad moodaa mawlidka ma bidca ma samahay dhaade bis waa xasana ii jooji bidca miyay ma samaha intaad iga jawaab dhinacyadu fiiri wuxuu yiri waa bidca digsiyadaada iga qabsay dhaade ya digsiyadaada igala wareeg saacada laga bilaabo ay ka dhaqaajis ya haday wax dhageysan lahaayeen kuwa qaarkoodna waa ka wada dhaqaajin lahayn laakiin dad macnaha dan leh ku danaysanayo laakiin mar bay wax garan doonaan insha Allah taala qodobka lixaad oo aan kaga jawaabayno shubhada wuxuu yahay قياس باي وحي كجا إن لجا قياس تمال ما مشروعه أو صوم كذا مشروع شرعة كدكتي سيدا معناته سنين طول صومه سيدا معناته خميس طول صومه إيه وحي لما يد مالمها مشروعه إن مالما أي صوم كذا مشروع هن إن لجا قياسته يا أما مالما أنت بالدق لوجو تريجل إن لجا قياسته وحن نوع عصا وحي علماء كل تريجين قياسا مع الفارق وحلا يقال وانا قياس انجرنا باطله معايا للدليل كنت تصينا مجرى دليل كنت تصينا مجرى الا ان هودا اسكر راعد انسان الى قمن اي وحلا ميد مويان marka qiyaaska qiyaas jira ma aha maadaama nabigu isniin uu soo macalay salaam annagana waa bodboodayna ihtifaalkan kaga qiyaasanayna qiyaaska qiyaas meel haysta maaha qodobka toddobaad oo lagaga jawaabay shubada wuxuu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii isniinta keligeed soon ma ku gooni yeelinba bal kaana yataharra siyam al-ithnayn wal khamis maalinta khamiista iyo maalinta maxaa la yiraahdaa isniinta labadaba inuu soomo uu nabigu ku dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam maalin isniin kaligeed oo iskaga dadaali jiray ma jirtaba si ahaanba mana soo aroorin inuu labadan maalmood uu nabigu ku dadaalo soonkana waa sheegay sababka ku bixinay oo wuxuu yiri wa yawmaan tu'radu fiihima al-a'maalu 'ala Allah wa laba maalmood oo a'maashi adoonku uu soo sameeyay wanaagsaneed oo dhan Ilaahay loo bandhigay subhanahu wa ta'ala sida daraadad nabigu wuxuu yiri waxaan jeclahay inaan amalkayda Ilaahay loo bandhigo aniga oo sooman isniin kaliya kuma gooni yeelin khamiistana waa soo majiri isniintana waa soo majiri waayahay
حديث أبو داود النسائي أحمد الترمذي كل وصاص على حديث صحيح marka maalinka isniin la dhaho oo kaligeed uu nabigu soomay ma jirtaba alayhi salatu wasalaam wajka sideedaad oo kaga jawaabayna shubhada wuxuu yahay nabigu alayhi salatu wasalaam maalinta rabiicul awwal ay tahay ama mawlidka ay tahay 12 ko waaba hadii nabiga xilliga dhashay ay ansaxday waaba soo marnay soonku ma gooni yeelin ولا حتى وح يرو عبادته كمذا حتى صون كدوان كم جوني يلي النبي عليه الصلاة والسلام من وينين بمعنتا سيدا أيوة الشيعان أيان إن هذا مركب النبي وينين وايو وح عبادنا وكو جوني يلي وايو معنتي معناها أي تاي مولود كلامي طبعاً وحيكو تصين إيسا إن هذا معنتا إن لوينيو أما وح عبادة جوني لوجو جوني يلا إنا بنانة بكتسينيسا وأنا صامرنا آيات القرآن كهذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وجه سجالات باجرون كجد جوابين الشبهدان وجه كسجالات وحوجة أيها وحيدهن والنبي واصوم وصح بود إيو قصيدة لقادة إيو وعنها وصلت لعنا ما سمينين لكن وحيدهن واصومي خلاص صوم كاسوت كو احتفالي قاب كان لو دغا كلا دوان موغي احتفال او احتفال ايدهن نيكي عنت كري ايو نيكي بود نيكي صومو وان احتفال لا اسلا دايدن لكن قابكم باير كلا دوان هي waxaan leenahay qaabkaad adhahdeen su'aalahan soo socdo oo in weydin doono ayaa jawaabtooda laga dhax fahmaya idinkana waa inaad ila socotaan su'aalaha si aad jawaabtooda u heshaan markaan idinku soo laabto su'aasha koobaad waxay tahay ma noo bannaan tahay annaga inaan salaad shanta salaadood ee macnaha mashruuca ee waajibka noogala dhigi salaad aan ahayn inaan ku soo darsanno guud ahaan aan dhahno annagoo u daliishanayno maadaama shan salaado waajib ay jiraan salaado dhan inay bannaan tahay ku tusinaysa annagoo dhahayno ma ku soo dari karnaa mid lixaad maxaa ileen shan salaadood maadaama noola oggolaaday annagoo shantaa noola oggolaaday ka duulayno midoo lixaada maan iskaga darsanno يا إلهي الرسول كيس مؤجن سو أنت أسمع هيه أنا كانوا حلنا هاي ورسون كانت رسولك أوجاي أنت كارس كمؤجن هذيك لو واحد كو غصبنت هنا دادو ثلاث شنات اللي حد نقول سودري كرا لا كلا دورو هي صلاتها شنطة صوشون وقت ملها خلاص صلاة وقتي لكن وقتي كان حقو ظهرك وبدلينا عشاء ورينا هيا منوص عني صلاة داس يا خلاص وحكلون لنا هاي صون كأنه رمضان كواجب ياهي ومشروع ياهي ما كدي جنت هاي صون كلا واجب إن لسكا كينسن كرو ما دام رمضان بواجب نوغلا دغي مid kale waajib in anaga iskiga soo darsan karno ma ka dhigan tahay mise kama dhigno wuxuu ku qasbay inuu ku dhaa kama dhigno haye waxa lana xajka waa waajib soomaha qofkii ilaahay macnaha subhanahu wa ta'ala karansiyo xilli gooni ana loo sameeyay maadaama uu waajib yahay qofkii awoodo xilligu doono miska xajin karaa waxay ku qasbiin maya inay dhahaan haye oo haddaan dhahna ka waran xajki waa isla xajki bishaan hadda mawlid soo kuma jirno mawlidka iska xajinaynaa xajku waa xajki qaabka kala duwan moogi
اللي أيقو عيدهن احتفالك واحتفالك لكن قاب كلا دون أنا قلنا وحلنا هي والحشك وحشكي قاب كلا دون مع السلامة نوكل وط من نجا أقبلها يعني أنا كان أقبل بيني كان صلاة وصلاة دي لكن وقت كلا دون لنا الشيء هم بندور قررني دملا نجا أقلادو هذا أقلاتان كنا أقلانينا يا marka waxaan ayagaba ayna sameynaynin inay hadara dadka sameeya dhahan wax sax ma waaya maxay anagu salaadun baan ka dhigni xogo wax baan soo kordhin baan ku darnaa dhahan waqtigan baan ka yara bedelni qaabkan baa qaabka ka yara duwan ogolaaw ma ogolaan karo Soomaha tana lama ogolaan karo waj tobanaad baa jira oo lagaga jawaab karo shubaadan وجهك طبعاً محيي هاي وحاكا لازمة إني دهان وإني كو قصبين أريتا وي بنان تهي قابكا كلا دون ويلزم عليهم أن يقولوا إني دهان باكل لازمة بجواز ذلك أريكا وي بنان تهي حاجك إن وقتي سلقة بدلي كرو لا وقتكم باكل بدل الموجي قابك إلا كلا بدلي كرو هذه قابك كلا بدلن بالوص عن كرو كما قالوا جواز الإقامة الاحتفال بذكر المولد سيدا يقول دهين با ما أنت سنين تا النبي وصامي احتفال باي إهد أنا قلنا عنتان كرسني قابكم باكل الدول مو احتفالك واحتفالك سيدا يقول دهين تنوى إني أقلادان ويدهان صلاة وصلاة لكن قابك كلا دون صلاة وقت كده أموا لكن وقت أمبا وقت كير دون وايه وحاك الله يدهين حدي آيادان نجد ديدين حرب حديث كبار عفوا أوضح هذين مولود دليل أمور نغن كرو وحان هاي سنة هدين حديث كلا وايه وحديث كان كلنا محوياه نبي عليه الصلاة والسلام يا وحيده هندتك وحكود الرجلي عن صوم يوم عاشوراء ما أنت أي بش عرف بش زكاة أما محرم لا يقانو أي سجال كتاهي إلا الصوم والنبي قدتك كود الرجلي بيده هي أيضا لقى شكرنا يوم بدبادي إلهي موسى وبدبادي فرعون إبلايدي سوك بدبادي أسجي أنت لسعتي waxay dhaheen marka arinta waxaan ka faa'iideysanaynaa inuu mawlidka iyo baramburkan iyo hawlaha la isku aadinayo isku rakiban inay mashruuc yihiin waayahay anwaacda cibaadada qaybaheeda kala duwan oo dhanna oo daliil u noqon karo ama ha noqoto in la sujuudo ama ha noqoto ha la soomo ama sadaqa la bixiyo ama quraan la akhriyo meel iskugu imaado iyo wixii la mid ah intoo dhan inuu daliil u noqon karo أن كفى إذا سنيدهن قصة أي حديث أو كتب ماضي وأنا حديث صحيح وصح وحن لنا دليل إن معها وحنا كب حين جوابها صوص عضو ومدك وبعد هالقف أو كفهمي إن الحديث كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام بحل جيسي إلا أنت قدم بيصادن يسلف كيردن حديثك ولا كلا دحله هالقف مولد كفهمي بالنوك هنا ما نكيني كرانا تاوامد وجه الله بعضهم كذا جوابه نحوي نبي عليه الصلاة والسلام صوم كعاشوراء أيودتك معنا كودي رجلي أيضا إلهي لو شكر الله سبحانه وتعالى بدبادي وموسى أنت لسعت فرعون كبدبادي هيه دي رجلي ذو النبي كودي رجلين وحيهد بوحي من الله وحي حق الله لقى فريبه يهد هذا من وحي بكوكو صدقي لما كان هذا الله هدي لسي دران ديري رسول بيسوب بدلاين مركضم لكن والله بحماية لكن سي هذا هو الله قوة بان أركين مالمهن يوتيوبي يسوق الجلايانو إننا فرق جشتانو وإحنا قشك شيئان باللعبين وحاورون إني إسكت جوجان ويهوله هذا إسكت قستان هذا يهين مركل اللي صدق اللقاضو عيبها أي كفر ديان أي كتبت أي حمبارسيين الشركيات كي قال لماذا كدوجن ويجارنايان
laakiin waa laga dulqaad badan yahay waa la iska aamasa waxaan burdo ku yeelo iyo hamziya ku yeela iyo munaaqab ku yeela iyo macnaha karaamaatul awliya shacraani ku yeelo iyo maxaa la yidhaha kutubta qushayri ku yeela iyo kuwa qazaali ku yeela haddii daboolka laga qaado ya sida kuwii marka hadda ka hor sheekhu uu ka hadlay dhagax meesha inta la soo masaajidka irdiisa soo dhagax tuuri jiray dhagax tuur bay bilaabayaan intay hadal kala waayaan laakiin waxa u fiican inay iska aamasaan youtube-yada waxaan ku arkay ku ka hadlaya dhahaya taqsiim tawxiid baan ka hadlaa iyo maxaa la dhahaa taariikhda salafiyadan ka hadlaa iyo inaad iska daaya u ron laakiin maalinta loo dhiil qaado way og yihiin ayagoo dhagax tuur ay bilaabayaan intay hadal kale iyo jawaab kala waayaan waxaan leenahay dhiirigelintu nabigu ku dhiirigeli calayhi salaatu wasalaam dadka macnaha in maalinta la soomo waxyi min allahi bay ahayd xadiidkan cadday waxaana ku tusinaa xadiidkan oo nabigu markuu madiina soo galay ayuu wuxuu arkay nimanka yahuud oo sooman maalinta caashuura wuxuu yidhi maa haadaa waxaan maxayin aad soomantiin waxay dhaheen waa maalin wanaagsan هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم هي بني إسرائيل ما نتو إلهي كبد بادي ويعدو قودي فسامه موسى صومي هيه نبي مركز وحوري عليه الصلاة والسلام أنك أيام موسى إنك حقني ما بدن لا إذن كودي سما بهايسانا الله أنا ما برمي سندين نبي قوا صومي ضد كان إني صومان بفري وأنت ما وحي با مسوى الرأي سو وحي ما حق الله كيمه سبحانه وتعالى النبي قال فرع عليه الصلاة والسلام وايه أرجع مركو حكوا عادي هاي إنه يا معناها دليل سكون النبي عليه الصلاة والسلام معناها كيمد إنه يا والنبي سمي ضد كانوا فرق وجهك الله بعض سد حدا كجا جواب إنه حوي نبي ما أنت عاشوراء وصومي ضد كانوا كل رجل إنه صومان فكان صيامه سنة به هيه سنة لقد ضينا النبي عليه الصلاة والسلام ولقوا راعي وسكت عن يوم ولادته الذي هو 12 من ربيع الأول كما يقولون ما ننتي لدلي أو لبي توانك مولود أي هدنا نبي وكأمس كما هلين وحبنا نقوم الشيء هيه wax oo macnaha cibaado uu noo jiday oo maalinta mawlidka 12 ay sameeynayna ma jirto marka maxaa waajib an naskuta kadalika sidoo asagaba ugu amas annagana ugu amasno shib mana noo banaana inaan isku dadayno meelaha gacmaha gelgelino oo marka soon aad asaga jidaynin aan jidayno ama qiyaam cibaado asaga aan jidaynin aan jidayno ma banaano هذه كلام دينته وحيس كان نقول واحد قشن قبوا إنه والبوح ورا وكسمة وحربنا وكدرة وحربنا وكجرة وش كأفراد وإنك جوابين شبابا وحيته حدي وياهي احتفال كان أتسمي نيسان النبي ودق إنسان عليه الصلاة والسلام الرماها مشروعة ولا جدي هدو كميديا أو ولي وياهي إلهي ولقوا شكريو نعمدان وينو إلهي النسي والنبي عليه الصلاة والسلام النص الدريئة هدي ولي بلغ الشكري هديت هاي أو ولي عاشوراء إيمان انت الله صومات كاكا قياسا نيسان الله سبحانه وتعالى محون وفروه هردائنا كجواب تنبال الروح محو الله نوديه ورمان انت كشكري سيدا سميو رسولك عليه الصلاة والسلام محون وفروه سلف كيسا محيو سمين وين ما وحد لهذا هي جاهل بيكا هين ويقرن وين arwaakaas haddaad ku ragnimada hayso ku dhiira ilaahay baa garan waydhe oo rasuulkii baa garan waydhe oo salafkii baa garan waydhe wuxuu og yahay ma dhigi kare gaalnimo inuu dalaq dhahay isla markaa xaaliyan inuu gaalooba buu ogi ma dhigi karo laakiin wuu aaminsiya waa kuu qarina la soco tuqiyo wax la yiraahdo rumaysiin marka kutubtooda ku qoran haday macnaha nuunuuda ay bariyahan bilaabay naga daayan waayaana daboolkan ka qaadayna sida shiicada tuqiyo inay rumaysiin oo hatta cali inuu soo noqon doono oo awliid ay soo noqon doonto ay rumaysiin baa kutubtooda ku qoran
ninkii rabana waa ii imaan karaa anaa tusay kitaabka qoranto marka maxay saxaabadii Allah subhanahu wa ta'ala muxuu dadku fari way arinta iida oo rasuulka kaleey salaam muxuu dadku fari way oo salafkiisa maxay u sameeyeen waayeen ma waxay aaminsan tihiin inay arinta garan waayeen oo jaahil ka noqdeen sidaad idinka u garateen shaki kuma jiro markaan arinta noocaas ah inay duritaan ilaahay la duro ay tahay subhanahu wa ta'ala oo ay tahay duritaan rasuulka kaleey salaam la duray intii naga horeeysiina la duray maxay yeelay waxay ayagu sameeyeen inaad adigu la boodboodo waxay ka dhigantahay way garan waayeen xaqiiqada qofka soo caaqilana uu garan karaa wajka shanaad on kaga jawaabayna waxay tahay shubhadan maxay saxaabada ridwaanullaahi calayhim ayagu Soomaaliya dhihin maalintii Ashura ayaan kaga qiyaasanaynaa maalinta mawlidka soo ma inay dhihin oo labadan waa usu dhig Soomaaliya dhihin maxay saxaabada ugu qiyaasan waayeen in maalinta mawlidka la ihtifaalo maxay saxaabada ugu fahmi waayeen oo ugu qiyaasan waayeen waayahay maalinta qiyaaska ma fahmi waayeen ragga dhan oo diinta looga dambeeyay oo nabi maxamed kaleey salaam kaga tagay qiyaaskan adigu aad garateen maxay u garan waayeen intaas aan kaga tagna shubhadan waxay dhaheen haday godkaada naga saarteen god kale oo galeynaan haysanaa shubha kale aan haysanaa oo maxay tahay waxay dhaheen ninka la yiraahdo Abu Lahab muslim buu ahaa masgal ya waaye soo galmeen waaye gal iyo muslim waxay deynayaan mala waxa la yiri moogtahay ninkii daad qaaday maxaa la yiri xumbu cuski Soomaaliya nin digsi dibka u saaran yahay intuu dagaalamay waa dagaalamay gal iyo muslim wuxuu lagu hadla galaba ninka la yiraahdo Abu Lahab hadda ka hor riyooday dhaheen wali waa riyaade la soco arkay ma anaga ba meelaha aan degi jirnay riyada waxayba ka tahay wax weyn bay ka tahay mararka qaarkood waxaan garanayaa xasuustaa subaxdii marka assalaamu calaykum salaad subax laga dhaaba oday baa faqdhihi odayaasha raali ha noqdeen ayagaan ku tusaale qaadanaya nin oday baa kacaya sheekh hebel baa riyooday oo kun yaasiin hal akhriyo u dhahay ari hal soo qabto dhig baasha riyada marka agtaayna caan bay ka tahay yey ka ahaan jirtay waaya waa kan hadii halkan ay asal ku tahay la soco mar baa laga yaabaa hadii culimadu iyo ogolaadaan nimankan masaadirta ay wax ka qaataan inaan ka hadlo sideedaba meesha ay daliishadaan oo wax walba u la laabtaan masaadirtooda horta maxay tahay ma kitaab ba ma sunna ma ijmaac ba ma qiyaas waxaas ay dadka beenbeentay meelaha ugu sheegaan inay sax ahayn oo waxyaalaha masdarka ugu xoog badan wax ka qaataan ay riyada ka mid tahay oo hebel baa riyooda maqlaysan hebel baa kitaab qoray oo maxaa ku kalif wuu riyooda maqlaysan buusiri akhriya xaashiyadiis macnaha la saari ana burdihiisa xaashiyada uu sameeyay ninka la yaraha macnaha baajuuri rag la midka waxay leeyihiin buusiri inuu burdahan tiri waxa ku kalifi wuu riyooday ya nuuru dhilaamka midka iska leh kitaabka inuu qoro waxa ku kalifi waa riyooday baa kutubtooda tafka masaadirta rasmiga wax ka qaataan bay kamid tahay la soco hadda macnaha baabkeeda ma joogo laakiin hadii la saamaxa mar baan ka hadlayaa insha Allah taala ninka la yiraahdo Abu Lahab baa riyooday kadibna markuu riyooda waxa ariya lagu arkay afan asaga mar riyoonina qof baa riyooday kadibna riibu ku arkay haye معناه أبو لهب مركه وريستي فقيل له كيف حالك أبو لهب بالحال هذا كورن قف أهل كيسة كمية ولا بالرياضي مركز وحيري أبو لهب النار كجرو ويجو وحيري النار بان أحجيفا لكن مركه قاركود أو حبينك سنين أمامانة سنينتي ولا يقفل زيها محيالي أنا جو وحنكون فرحي دلشة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل أذيك جرتنا وابو حري فرح درتي سبوري marka intaas yar naar baan dhax jiifaa laakiin inta yar naarta leeyaga fuudeeyaa buuri horta waxaan leenahay waxaan riyadan ee aad daliishateen oo doonaysaan inaad ku digsiya karsataan asalkeedu horta waa jirtaa waa sax way bukhari bay ku taalaa laakiin qaabkay kaga taalo ay ugu taalo waa sheegayna ayadoo mursala ah rag mursalku waa yaqaanaan u maleeyna مصطلح بيقوني ولا سو أخرست
ومرسل منه سحابي سقط صمين وياهي قاب كان أين أقرنته نك اللي يرى عروة بن الزبير أيا وحاولي زينب بنت أبي سلمة قبل اللي يرى باي ورنتي يا أساق ورنتي محي وبشي كيس أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حبيبة قبل اللي يرى أبي سفيان قبل ديسي أهيد با أيضا أسي ورنتي وحي تري شيكذا ويد ديريدو قبل وحي أهيد عروة وحو يري ثويلة قبل اللي ثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب وحوها اعتقها قبل كي حري فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وين نجس قبلها فلما مات أبو لهب مركو جيريو مركو أريه بعض أهله تدكي أهل كيسي قرابتي سقيب كميدها الريال تصي قال له أهلك وحيري ماذا لقيت أبو لهب محلك ولنتي أنت القبر كجرتي قال أبو لهب وحيري لم ألقى بعدكم ورسيدان إنك يقصوا تجاو أسو جيريو قداشين ما أنا لكل من وهو ناكسن غير أني سقيت والي ورابيا في هذه بعتاقة ثويبة حري أيا حوغو ير ليغو كالميا أو حوغو يرو مالها ليغو ورابيا وبي ير ليغو سيا إلى صعو intaan waa horta inta maana Bukhari ku taalo haye balka waraha Bukhari ku taalo masaxba waxa leena marka koobaad waa khabar mursal ah munqadi'un da'ifun way sanadkiisa waa kala go'on yahay ee ma xariiro waana da'if umana suubada in la daliishado mawlud ma iska dhaafa wax ka yarna looma daliishan karo بخاري وحكو كيري معلقات البخاري واليقان أي أحكام تيليه كتاب كنينك شرحي أو معروف كما تغنن ابن حجر العسقلاني صمها الحافظ ويه حافظ هداد مغشيد قال الحافظ هداد كو أركتد علماء كتب توضو كتاب كو دونا بها النقضي ابن حجر العسقلاني بس لقبضها لقب أريدها لقب سؤولي فهم ننكي إذا هو حديث كشرحي محكيري وحيري قال الحافظ في الفتح الباري مشيرا إلى انقطاعه الصوت الماما إنه كالجوني ضعيفنا يا أبو حيري إن الخبر أي خبر ثويبة قبل اللي خبر كذا مرسل واي أرسله عروة معناها نك اللي عروة أيا مرسل كيري ولم يذكر من حدثه به بول قفك وشيغين عروة مشيغين halkaas ku day marka waxaan u baahanahay inaad keentaan urwa iyo ninkii warkaan wari cid u dhaxaysay inaad keentaan ilaa lama haaye oo kala goon yahay wixii sanadkiisu u goon yahay waa dhaif asagoo mursal si ahay oo awal badood ka jirtay mursalka ma la xujeysana ama lama xujeysanayo hadana waa si munqadi'o ma ba ansixin مرسل كمركو وحو كميديا من أقسام الضعيف انت واحد درم بابا جرو وجه سدحات وحن لنا هي ابن حجر نفسه أشيغي ابن حجر نفسه أشيغي أو وحو يري أن ذلك الخبر لو كان موصولا لا حجة فيه خبر كان نفسي أو مرسل كا حتى هدابة دعض إن لما موصول لقد ديقو أو انقضاع لقد سارو رقم ماشي كجري لبوحيو هداي بدعضه لا حجة فيه حجكم سجنوده ما حد يقول سجناه يا شيخو لأنه رؤيا منام بوده والريا هرتوه ما هو صحيح والريا هردوه وهرد لك كنوه هيه والرؤيا المنام لا يثبت بها حكم شرعي بوري هردنا حكم شرعي ما بلغو سجبا هردنا أنبياء رياضة أنبياء مركز لك حرب الريانا حكم شرعي ما بلغا قاطبه ما نلغو سجو أنبياء الرؤيا ده مركز لك ريبه وناس صعته هدي كلا نقول بابا هدي عوار رياضة صلاة هل تكدو اسكدي محلية لبري يا قرآن كان انت زان صفري هلا أقرب اسكدي رجوا يكل حريفسين واتغنا دي نبى كوي ما نروح كل الله أكبر حال الجنة ده سعوتك كيلا سكر اللي يديب يا جنة ده سعوتي ده كل مسكين كوار وركان لقو يري
kiilo sokor oo 100 shilin joogo miyuu la bakhaylaya war qabso way khayr laa ku waa ii bishaaraysan buu ku dhihi waayahay marka ruyada ama riyada xogan sharci lagama qaato buu yiri ruyada ambiyadana waa arki doonaa waaba haddii laga soo qaado inuu sanadkiisa xariiro waayo maba xariire laakiin waayahay ولي واسي وذا ابن حجر وحليه وعلى تقدير أن يكون موصولا إنه حرير كبا سوقاده فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه وروح خبرك وشيغا ومعناه الريوي ريانا حجكم الصغنو ولعل الذي رآها وحالغا يابوري نينك أركينه أو رياضة شيغا يانا لم يكن إذ ذاك أسلم بعد إن أدولي بمسلم هم بابا لغا يابا أبو لهب رير كيس نينك دي شهر رياضة سلام ديه إنه مسلم إنه قال هاتا لمشيغي inaad waliba islaamina dhici karto ku dhax xadiiska markuu sharxay ka fiiriyo xaafidka si fiican u faahfaahay ninka leeyahay sheekh alawi al-maliki rahimahullah ta'ala wuxuu leeyahay waru'yu al-manamiyya ku riyada ee hurdada ah laysa tariiqan lit-tashrii'i wadaba umaha weere sharci laga qaato wax lagu jideeyo wax lagu xaraam yeelo wax macnaa lagu sugo wax dadka looga xaraam yeelo wax lagu fara maaha wala mustanidan li hukmin shar'iyyin wax loo cuskado daliil looga dhigi karo xugun sharciyana ma baaha maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay qofka hurdaayo horta hadaad marba saxata marfuucul qalam ma tahay mas wax waa laga qoraya ya nabigu muxuu yiri alayhi salatu wasalaam rufi'a al-qalamu an thalathatin maxaa kamid ah an an-naa'im hatta sayqada war inta hurdayso wixii sheegtaan ba laga qoraynin oo dadka hataa ka maqlayeen يا واحد أديكم كريوتي أنت محلك سوق هذا وياه إجماع بقولي بسوق جوري وحلي وقد أجمع أهل الإسلام إسلام كعلماء دي صدّن وحيسكون راعين على أن الشرع لا يثبت بالمنامات أحكام تشرع أما شرعي اللي قوم السوق هردو أيوة حنا الريال اللي قوم السوق مهما على شأن الرأي ولي qofka riyooday intuu doonaba qiimaha kala ahaa joogo sheekh dadku ugu sirreeyaan noqdo darajaad iyo iimaan iyo wanaag iyo cibaado iyo cilmi meeshu doonaha ka gaaro qofka illa ay yakuna saahibu ru'ya nabiyya inuu yahay qofka riyooday nabi uu yahay mooyane riyada diin laga qaadan karo waa riyada ambiyada bas ama wax ka soo haro laga qaadan karo daliil ma jiro بحيث مركز وحير فرؤي الأنبياء حق ووحي وشرع أنبياء الرياض ووحي وأنا حق وأنا شرع بوير وحلنا وجه أفراد بان كجد جوابنا شبهة أي كانين وحلنا هرت رواية لكاني أو الدريشة دي أو ضعيفة انصمرني أو تلماميس أبو اللهب إنه جواد اللي راثوي بأوحري مركو النبي قد الشعاء للشديس أكتد عليه الصلاة والسلام intay nuujinin ka horano inuu nabigu macnaha waxa weeye Abu Lahab uu xureey ee gabadhan tilmaamayso waxay khilaafsan tahay culimada siyarka waxay soo guuriyeen way khilaafsan tahay culimada siyarka waxay soo guuriyeen in Abu Lahab uu xureey gabadha بعد ولادة صلى الله عليه وسلم مركي معناه وحوي أي نوجس كذب وقت بدن مركي لقى جو حديث كان مرسل كضعيف كان وحوشيجا مركي دلنا إلى حري أرنت أنا وحاشيجا حتى ابن حجر عسقلاني في الفتح الباري وكشيجي كتاب كيس الإصابة في تمييز الصحابة وكشيجي ابن عبد البر وحو في الاستيعاب وكشيجي ابن جوزي نفسه وحوكشيجي الوفاة في بأحوال المصطفى وكشيجي كل جود وحيد خبر كان وحو شيغايو اي waxa kutubta siirada ku qoran way kala duwan kutubta siirada waxay sheegayaan markay nuujisi ee muddo la jooga kadib in maxal ira u xurey khabar kan wuxuu sheegayaa in markuu dhalan rabay inuu xurey markuu waaba way iskhilaafsiin mid waa midaas asagoo daciif ah wixii siirka ku qornay ayuu daciif oo khilaafsan yahay qodob kale waxaan leenahay ee shanaad asagoo daciif ahay haddana quraanku khilaafsan yahay iska dhaaf kutub siire wax ku qoran
وحكى خلاف سيه إجماع أمضنا وخلاف سيه marka waxa wax jiraba maaha oo suu khilaafsan yahay quraanka daahirkiisa wuxuu sheegayaa inaan qof gaal ah aan cadaab laga fududeynaynin gaalnimadiisana aan loogu fududeynaynin ala xaal min al ahwal sina aan loogu fududeynin quraanka saas sheegay haddaan tusaale gaaban quraanka soo qaadano ilaahay wuxuu leeyahay walladina kafaru kuwa gaaloobay lahum naaru jahannama usubnat la yuqda alayhim fayamutu geeri laguma xukumayo marka ay dhintaan wala maxaa ku xiga wala yukhaffafu anhum min adabiha adaab kana lagama khafiifinayo kana muxuu sheegayaa daciifka mursalka daciifka muxuu sheegayaa in adaab gaal laga khafiifinayo miska hormaade mas iska hormaade ya soo isma gongeynin waaya quraanka markalo ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qala alladhina في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم محيدهن يخفف عنا يوما من العذاب وحودن آياتها دي وحي لميد كودن وكهر مانايا مركل الإله وحلي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل محاكو حق فجعلناه هباء في رياته عمل كودي ودن بينه هباء منثورا بإله وكدق بو شيء خبر كان وحولي عذابك بقى لقى فضوديني مركل الإله وحولي سبحانه وتعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه محكو حاجة فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ظاهر كقرآن كهر إمانا أسقوا أول بتبردرنا هذا القرآن ظاهر كهر منا ابن حجر العسقلاني وحو سوغوري علماء كلا كسوغوري فتح الباري وحلي أن اعتبار ضاعة الكافر قال وحي وناق أو تسميه إلا اعتباريه مع كفره السوغو قال لو اعتباري أو مال لو ديق أو لو حسابي محال وولي وشيء مستحيل ما بصورة لقرت ما حد عاي لأن الشرط ضاعة مركز وناق أتسمين الشروط دي سوحاكمي ده أن تقع بقصد صحيح وذلك مفقود مع الكافر نية الصحة وجود الصحة مركز عبادة ولتي ما دوي أن صحيسة قال ما لقيني كرارتاس مايا سادة رد العلماء وحكسوا قولوا إليهن لا يعد عمل الخير ضاعة عمل كخير كإوناكسن لقمت ترينكر ضاعي وإلهي لو بدو هذا لقمت ترينكر ولا تقبل عبادة لما أقبلها إلا بعد إيمان وإسلام قفك مركو إيمان لقاها إسلام ما لقاها لكدي ولا أقبل كرا أنتم بلا سعطان خبر كين وحوشيجا يقف قال له هي عمل كيوس وناكسنا اللوها جاجي أو حاجة نارت اللوها خفيفينه حديث كم بلدقيسو نك اللي يراها عائشة رضي الله عنها بوحي ويجسي النبي عليه الصلاة والسلام نك اللي يجري عبد الله بن جدعان نك كان وحوها نين دقسي أو حلق حج كاللي يماضو dadka xoolo fadan u qali jiri oo dhar badan hatta dadka masaakiinta u gadi jiri oo hatta macnaha heshiiska macnaha taxaalufka la dhihi jiray al-fudul loo aqoon jiri hatta asaga gurigiisa lagu qabtay markaas ay Aisha marka wuxuu wanaaga badan iyo acmaasha wanaag faraha badan oo sameeyna markay la yaabtay waxay tiri rasuulki ilaahiyow hal yanfa'u dhalika ya rasuulallah waxaanu amal wanaagsan oo ummaddu wax u tari المسلمين تجارها وحوتر ودنيك سمينايا وحموتريان نبي مركز وحيري لا إنه لم يقل يوم من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين نبي وحيري مايا مانين مالمها كميدا أما سنة كميدا نكا بديهن إله الدم بجيد داف معنا صوم إسلامي وي بالكورم وياه قاضي العياض نينك اللي يراها وحوسوق جوري إنا علماء ضم كي إجماعين إن قال أعمل وناكسن أتسمي أن وحبه ترين وعير إن عقد الإجماع على أن الكافر أو على أن الكفار قال هذا إن وحوترين لا تنفعهم أي وحوترين أعمالهم ولا يثابون عليها وحبنا إن يؤترين حقنا أن أبال جود لقى السينين عذابنا أن لوقف ذينين جننا أن لوقف السينين بو علماء كسوق جوري وأنا إجماع بوري أنت صورنا بأثر كو خلاف سنيه قضب كاللحاد وحن كلا ريبا مرة ما وحيري يهري
waxaan leenahay oon kaga jawaabayna waxaa weeyaan shubhada aad keenteen faraxa kaba soo qaad ninka la yidhaha abulahab inuu farxay faraxa uu farxay talow muxuu ahay ma farax cibaado u ahay mase wax iska caadi oo dabiici buu ahay haddii lagu yidhaha hadda walaalka oo aan ilmo ayna hadda guursaday ama ilmaba aad ku ogeen baad cunug u dhashay haddii lagu yidhaha faraxa aad farxda muxuu yihi ma farax cibaado aha oo ilaahay loogu dhawaana mase waa mid iska caadi oo dadka dhan iska farxaan ya waaya waxaan leenahay ninka hadduuba farxayba dheceed oo ansaxdo war wuxuu farxay waxay ahayn farax iska caadi ah midka adigu aad farxayso markay wax un aad ku guulaysato ayuu la mid ahay qodobka toddobaad waxaan leenahay ayadooba daciifo ah sanadkan riwaayadan timid ama xadiidkan mursalka isagooba daciif ah haddana kuma imaanin in macnaha abulahab ninka la yidhaah maalinta isniinta ah in cadaabka laga fududaynayo kumaba imaaninba keliya waxaa ku timaaday in wax laga fududaynayo maalin isniin laguma sheegin waa la gartay sidaa oo kalaato kuma imaanin abulahab ninka la yidhaaha inuu macnaha gabadhii suwaybaad u xureey farax uu nebi dhalashiis ku farxay darteed u xureyna kuma imaanin asarka waxaan jirin baa lagu been abuurna moogta asarka isagoo daciif ah oo quraanka khilaafsan oo ijmaac khilaafsan haddana waxaan ku imaanin baa waxaa la leeyahay waa ku imaadeen waa ku yeelaan qodobka ugu dambeeya aan kaga bixayna wuxuu yahay waxaan leenahay waddo sax ah ama dariiq saxiix ah walaa mid daciif ah midna kuma imaanin abulahab inuu ku farxayba nebi dhalashiisa calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa oo jaariyadiisuna oo sidaa u xureey waayahay intaasoo dhan maba ansixinba walaa mid daciifayna kuma imaanin qofkii marka yidhaaha waxaa weye arrintaasuu ku farxay daliil baan kaa doonaynaa waana kaaga fadhinaa inaad keentaa la rabaa intaas ayaan caawa insha allahu tacaala kaga baxaynaa shubhadii maxaa la yidhaha lixaad shubahaadka meesha ii yeelo ii qoran afartamee waa waxaadna mooddaa 4 bilood aan wadi rabnaa insha allahu tacaala laakiin hadda beryahan waa u soo nasanayna ayagu 4 bilood waa wadaan mawliidka soo ma annagana waa wadaynaa jimcadii jaanis ay culimadana siiyaanba gawaan ka siinaynaa marka hadda xogoo laakiin in loo nastaa laga yaabaa oo ragga qaar iska safraan intaas ayaan insha allahu tacaala kusoo gaabinaynaa caawan wabillahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabi